الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وأحيا سنته إلى يوم الدين. في هذا الدرس waxaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala salaada axkaamteeda. marka laba dersi oo horaan ka soo hadalay, dersigan waa dersiga saddexaad. waxaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala halkan axkaamta ama xukunka ruuxa salaada ka taga ay diintu maxay ka tidhi. qaala subxaanahu watacaala يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النور ميو لا تلهكم بين إذن هلاقن أموالكم مالكين يون إذن هلاقن إذن مشغولين ولا أولادكم عروتين لأولادين عن ذكر الله. ذكر إلهي waxa u soo horeeya oo soo gelaya mowduucan salaada. waman yafcal daalika ruuxa arrintaas sameeya oo dikriga ilaahay ka mashquula oo ama xoolihiisa ku mashquula ama caruurtiisa ku mashquula ama dumarkiisa ku mashquula fa ulaa'ika hum lkhasiruun, macnaha kuwaas waa kuwa khasaaray buu alla yidhi. marka waxa soo gelaya u horeeya salaada. hadduu ruuxu salaada ka mashquulo tukan waayo oo ama caruurtiisa ku mashquulo ama maaragtay wax kale ku mashquulo oo macnaha xoolihiisa iyo warkaa ruuxaasi ruux khasaare weeyaan. ruux khasaare weeyaan, khasira dunya wal aakhira weeyaan, adduunka iyo aakhiraba uu khasaaray. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. nabigu wuxuu yidhi أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. addoonka wax laga xisaabo waxa u horeynaya maalinka qiyaamada salaada. فإن صلحت haddii salaadu hagaagto صلح سائر عمله camalkiisa inta soo hadhay way hagaagayaan. وإن فسدت haddii salaadu fasaado ka xumaato فسد سائر عمله camalkiisa inta soo hadhayna way fasaadaysaa. saasuu nabigu عليه الصلاة والسلام xadiidkaa laga soo wariyey. رواه إمام الدبراني ولا بأس بإسناده. wuxuu yidhi xadiidka sanadkiisu dhib male waxaana laga warinayay imaam الدبراني. وقال تعالى الله wuxuu yidhi muqbiran isagoo inooga waramaya can asxaabi aljaxiim, qolada asxaabuuljaxiim talayidha isagoo ka sheekeynaya. maa salakakum fii saqar baa su-aal baa la weydiiyey, war maxaa saqare idin geliyey? yaa la yidhi saqarena waa naarta kulul ee jidhka cunta oo cadaab aada u daran weeye. kolka naartaasay galeen. waxaa lagu yidhi war maxaa idin geliyey halkan? qaaluu waxay dhaheen lam nakun min almusalliin, ma aanaan tukan jirin. walam nakun nudcimu lmiskiin, miskiinkana ma aanaan quudin jirin. wa kunnaa waxaanu ahay naquudu waa dhex geli jiray maca alkhaa'idiin, dadka beenta iyo xadiidka iyo lahwiga iyo waxyaalaha aan loo baahnayn gala ayaanu ka mid ahaynoo waxaasaan ka dhex dabaalan jiray. wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiin, maalinka qiyaamadana waan beeni jiray. xataa ataana alyaqiin, ilaa xaqiiqadii noo timid oon ka dhimanay. famaa tanfacuhum ma anfacayso maanta iyaga shafaacatu shaaficiin. hadduu ruux u shafaaco qaado amba looba shafaaco qaadaba shafaacadaasi waxba kama anfacayso weeyaan. aayad qur-aan weeye, suuratu mudathir bay ku jirtaa. aayadda waxa weeyaan aayadaha laga soo bilaabo 42 iyo 48. waadic weye, way caddahay yani ilaahay subxaana watacaala sida uga hadlay meeshaa qoladaa naarta gashay leanno salaaday dayaceen. waqaala nabiyu, nabigu wuxuu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum assalaa, annaga iyo munaafiqiinta iyo gaalada waxaana lagu kala gartaa salaada. faman tarakahaa ruuxa salaada ka taga faqad kafara wuu gaaloobay. kharajahu larbacatu, xadiidka afartaa soo saartay, afarta imaam. wasaxaxu tirmidiguna waa saxiix buu yidhi. afarta imaama loo jeeda waxa weeye bukhaari iyo muslim, tirmidi iyo nisaa-i. ama wuxuu u jeedaa
السنن الأربعة. السنن الأربعة waxaa looga jeedaa marka waa Nisaa'i iyo Tirmidhi iyo waxa weeye Imaam Nisaa'i, Imaam Abu Daawud, Imaam Tirmidhi, Imaam Nisaa'i. afartaas sunanka loo yaqaan arbacada. afartaas u jeeda hadda meeshan. وغيره غيركينا وغير كودنا ويوريان حديثك iyaga غيركودنا ويوريان. marka xadiidka wuxuu tusinayaa in ruuxa salaada ka taga uu gaaloobayba. qaala nabigu wuxuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa. ruuxa addoonka iyo gaalnimo waxa u dhaxaysa tarku salaa, salaadu ka tago. kharajahu imaam axmed baa soo saaray xadiidka, wa muslim wa abu daawud wa ibnu maajah, wa hada lafdigana isagaa soo wariyey ibnu maajah. kolka xadiidku yani muslim baaba ku jira, imaam axmed baa ku jira, uu fiican yahay wey xadiidkan. wuxuu leeyahay annaga addoonka iyo gaalnimada waxa u dhexaysa salaada. macnaha haddaad salaada tukan weydo gaalnimadii meel bay ka iman, adna meel baad ka iman oo meel dhexaad isugu imanaysan wey, marka gaal baad noqonaysaa. wa fi saxiixi albukhaari waxaa ku sugnaa ana rasuula allahi sala alla alay wasalam nabigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu. ninka salaada casarka ka taga camalkiisu u burburay. waxaa camalka burburinayaa waa macnaha diintii uu ka baxay weeyaan. liannahu ilaahay subxana wa tacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi lain ashragta layaxbadanna camaluka. haddaad shirki samayso camalkaagu u burburay. meeshana waxaa lagu yidhi ninka salaada casar ka taga camalkiisu u burburay. macnaha gaalnimadii iyo salaada casarko laga tago yaa meel la wada keenay. macnuhu waxa weeye ruuxa salaada camalka casarka ka taga muslim maaha weeye. haddaan wax yar taabto arrinta ka hadlo arrinta ay culimmadu dhaheen xukmu kaalisarku salaadka a'immadu maxay ka dhaheen. waan u jeednaa axaadiidta nabiga calayhi salaatu wassalaam, laakiin culimmadii imaamu shaafici, imaamu axmed, imaamu abu xaniifa, culimmadaasi maxay ka dhaheen. culimmadaasi saarku salaadka meel fog bay kaga soo hadheen markay ka hadlayeen. marka imaamu axmed wuxuu yidhi ninka hal salaada ka taga iyadoo waqtigeeduna joogo, hal salaada ninka ka taga kafara u gaaloobay. isagoo halkaasu maray. kolka u gaaloobay la yidhaahana xugun baa ka ratigmaya, xugun badan baa ka imanaya. waxaa ka mid ah xukunkaa gabadh muslimada ma gursan karo, ila waa gaale. maka ma tegi karo. kow, hadduu dhinta lagu tukamaayo. muslim ma dhaxli karo. qiyaamadan waxaa lala keenayaa fircoon iyo hamaan iyo waa gaal ninku. arrintaasi waxaa yidhi waa gaal oo yidhi ninka salaada ka taga waa gaal ninka yidhi waa imaam axmed. halkaasuu maray isagu, nusuus adagna u haystaa. imaamu shaafici iyo maalik waxay dhaheen ruux hadduu salaada ka tago 3 beri baa la sugayaa oo loo kaadin. hadduu 3 beri gudahood ku toobo keeno fa hadaa xasan, waa fiican yahay. haddii kale waxay dhaheen waa la dili. weliba waxay dhaheen seef baa lagaga qabanayaa dhuunta, oo waxaa la odhanayaa inta seefta lagu qabto dhuunta lagaga qabto yaa la odhanaya wariyaa toobo keen. hadduu toobo keeno waa sax, markaa seefta lagu hayo. haddii kale seeftaasa lagu kala goyn baa layidhi. kadib baa laysku sii khilaafay. waxaa layidhi waa markii la dilo kadib xaggee lagu aasi, ma qabriga muslimiinta lagu aasi mise gaalada. haddii waa gaal la yidhi gaalada la raacinayaa. haddii waa muslim la yidhaahana kuwa muslimiinta lagu dili oo qisaas baa loo dilay wey markaa. laakiin masale adag weeyo oo yani khilaafkaasa ka taagan. ruuxuna mar haddii oo salaada uu tahaawunan uga tago, dee culimadu waa gaal iyo waa muslim, hadalkaa unbaa meesha ku badan. imaam axmed waa gaal buu yidhi. imaamu shaaficiyana waxay dhaheen 3 beri keliban baa loo kaadinay, kolkaa waa la dili. ma gaal ba iyagu waa gaal mayn odhan. waxay dhaheen waa muslim, waa la qisaasaya, waa la dilaya, laakiin ma noolaanayo. imaamka soo hadhay imaamu abu xaniifa la yidhaah wuxuu yidhi ruuxa salaada ka taga jeelkaa la dhigayaa. yacni madaxaha halku furuu ku xukuman yahay, jeelkaa la dhigi, lasoo dayn maayo ilaa uu toobo keeno. sababku saa u leeyahay wuxuu leeyahay wuxuu fasaadinayaa ummadii kale, ummadda kale ayuu inaga fasaadinayaa. marka isaga yaa dhib yare, ummadda ha laga xidho oo waxa weeyaan meel ha lagu xidho weeyaan. taasna imaamu waxa yidhi abu xaniifa.
halkaas horta culimadii mareen aqwaashoodii aqwaal fara badan oo kalena way jiraan laakiin afarta imaam baan hadda anu soo qaatay وفي معجم الطبراني وكتبنا الأوسط كتاب دبراني إمام الطبراني كتاب الأوسط معجم الأوسط باليدا عن معاذ رضي الله عنه محمد كوري معاذ بن جبل وكورينا يا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال إنه لا تترك الصلاة متعمدا صلاة كتب بيقول أضوءك السيئة فإن من ترك الصلاة بيقول إنك الصلاة كتب متعمدا يسوء كسيه فقد برئت منه ذمة الله إلهي عهد جيسي بريء كيهي ولا بأس بإسناده في المتابعات كتاب كان حديث كني وحديث سيحو بدل ما هلا لكن دبا لما يقول مركا اللي يرى متابعاتك مركا الله فيري ودوينك وكي درق الجوري وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحيري أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمرت واحد الله أمري أن أقاتل الناس أن تتكلم تقالمه حتى يشهدوا إلهي كقران أن لا إله إلا هل قطع بدين ونسنجرين إلا الله علم وإيه وأنا محمد النبي محمد رسول الله رسولك إلهي وإيه إلهي كقران وين الله تقال الله أمري بيه أو يقيم الصلاة صلاة أي كأوغان هذه الصلاة أوغوية ولا الله تقالمي ويؤتوا الزكاة زكاة أي بحيان فإذا فعلوا ذلك هذه الساس ميان عصموا مني دماءهم وأموالهم دي قد ويقال عليا مركا إيا حوله هذا إلا بحق الإسلام بحق سمويه وحسابهم على الله تعالى بحق الإسلام هو على وجه ذا زكاة إن لك قادو موي حوله هذا لقوا فرقالي ماي وحسابهم على الله إلهي بان حساب انت قبلا متفق عليه حديث كوال اسبوع حسين فماشا واحد كفهميناه موقف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكعدي روح تارك الصلاة كا iyo inay diintu ay soo dhaweynayeen nooca taarikh salaadka waa bal la dagaalamayaa ilaa uu ka tooba keeno xadiidkan Bukhari iyo Muslim baa isku waafaqay xadiid xoog badan weey وقال صلى الله عليه وسلم nabigu wuxuu yiri man xaafada عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ninka salaada tukada waxa uu noqonaysaa nuur iyo xujo burhaan iyo nabadgeliyo maalinka qiyaamada ومن لم يحافظ عليها نين كان صلاة حفظنا لم تكن له نور ونقطه ولا برهان ومنقطه ولا جد ومنقطه نبتقليه ومنقطه وكان يوم القيامة قيامة نروح لله صاري مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه أحمد بإسناد جيد حديث الإمام أحمد باورنية جيد سند كيسه في عينه جيد وجيد معناه في عيه ويان هلك نينك عن صلاة تكن نور من نقطه حجو من نقطه نبتقليو من نقطه قيامة الوحى على الله صار دون قارون يا قارون وقرآن إلهي كسبوا إن قارون كان من قوم موسى قارون هو كمدها يعني قوم موسى فبقى عليه مو كبري فبغى عليهم وكبري إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين marka ninka ilaahay maal buu siiyay xoolo badan uu kibray markii dambana dhulka la gooyay ayadaha hadaad quraanka si aqrido halkaas ka dareemaysaa fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh wa ka ilaahay fakhasafna wa la gooynay bihi isagii wa bidarihi iyo gurigiisiiba al-ardh dhulka la gooyay dhulka la jaray marka yoomna hada ila yoomna hada uu si socdaa baa leeyahay kaasu ninka taariku salaadkii la soo bixi doona qiyaamada وفرعون بلا صبيح دونا وهامان بلا صبيح فرعون دواب اللي يقينون انك كبر كبدنا بهاي انا ربكم الاعلى هامان وزير كيسي وي لا شقين هي وابي بن خلفنا تاجر كي قريش وي نينك قريش وحول بدنا بها لا كبر كبدنا كان وحوي والله سو صار يا ويان شفان ما نكان يراهو تارك صلاتك dadka qaar waxay isku yar qaldaan taariku salaadka iyo munkir salaa ama qaadicu salaa taariku salaadku waa ruux marna tukada
marna aan tukanayn salaadana qiraya kaa taariku salaad baa la yidhaha laakiin munkiru salaadku waxa weeye ruuxa salaada inkirayba oo yidhi salaadba ma jirto hadduu ruuxu salaadi ma jirta yidhaaho culimmadu iskumaba khilaafin inuu gaal yahay kaa ruuxnaba waa muslim ma odhan kaa marka waa in la kala fahmo kale leeyahay taariku salaad weeye waa ruux marmar tukada oo salaada qiraya marmarna ay ka tagto oo laakiin qiraya oo waxbaa si iga waan tukan macnaha oo islaamka qiraya laakiin ka inkiray la iskuma bakhilaafin kaa lababa isma weydiinba kaa lama odhan waa muslim cidna ma ayna odhan waa gaalkaasi liannahu wuxuu inkiray yani shay min daruuriyaat alislaam waxyaalaha daruuriyaadka ahoo aan la inkiri karayn arkaanta waaweyn buu inkiray ninka inkiraanada kaasina waa diintu ka baxay وقال بعض العلماء رحمه الله علماء قار waxay dhaheen وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة تارك الصلاة waxa lala keenaya dadka afarta ah maxaa ugu aan لأنه waxay dhaheen إنما يشتغل عن الصلاة ruuxu ka mashquulay salaadiisii bimaalihi maalkiisa haddii maalkiisa uu la mashquulo yani maca waxweeye dadka maalka ka mashquulay baa lala keenaya oo bimulkihi mulkigiisa oo biwasaarad mulki waxa weeye boqornimadiisa oo biwasaaratihi ama minister buu ahaa wasaaradiisa oo bitijaaratihi tijaaradiisa uu ku mashquulay fa in ishtaqala bimaalihi marka hadduu xoolihiisa ku mashquulo qaaruun baa lala keeni oo qiyaamada qaaruun buu la joogaa haddii boqortooyada uu ku mashquulana fircoon baa lala keenay oo dee fircoon salaada iyo diin iyo dan kama lahayn laakiin wuxuu ku mashquulay waxbuu ku mashquulay madaxnimo ku mashquulay sida fircoon oo kale marka la joogaa markaa ninkaasi hadduu wasiirnimo ku mashquulana haamaan buu la joogaa haamaanku waa anigii goorta dhow sheego waa fircoon buu yani wasiir u ahaa hadduu tijaaradiisa ku mashquulana xushira maca ubay ibn khalid taajiru quraysh kufaar bimaka ninkii qurayshta ugu taajirsanaa markaa oo mako kaasaa lala keenayaa walamaa ducina cumar ibnu khadaab radiallahu canhu cumar markii wax lagu dhuftay oo la dhacneeyey oo isagoo salaada ku jira toori lagu dhuftay qiila lahu waxaa loo yidhi assalaa yaa amiira almuminiin amiir almuminiin ow salaada u kac qaala wuxuu nacam waa run buu yidhi inahu laa xadda liaxadin fi lislaami adaaca asalaa ruuxa salaada dayaca islaamka xaq kuma leh buu yidhi wasallaa radia allaahu canhu wa jurxuhu yabcathu daman wuu tukaday isagoo dhiigu ka da-ayo markaa cumar radia allahu canhu wa qaala cabdallah ibnu shaqiiq ataabici cabdallah ibnu shaqiiq nin taabiciinta ka mid a buu ahaa radia allahu canhu kaana asxaabu muxamadin waxay ahaayeen buu yihi asxaabtii nabiga laa yarawna shay-an min alacmaali tarkuhu kufr hayra asalaa shay ma ayna u arkaynin asxaabtii nabigu gaalnimo inuu yahay salaada ka tegisteeda mooyaane laa yarawna shay-an min alacmaali camal kasta mayna u arkin marka camalkaa kastee la sheegaya wixii shirkiga kasoo horey kasoo dambeeyo weeye shirkiga isaga dee la iskuma khilaafaba inuu gaal yahay ruuxu camal kasta oon shirki ahayn mayna u arkayn inuu gaalnimo tahay salaada mooye hayra salaada mooyaane marka wuxuu yidhi ninkaasi asxaabtu waxay u arkayeen ninka salaada ka taga inuu gaal yahay rawaahu tirmidi fi kitaab aliimaan kitaab aliimaan buu ku wariyay biisnaadin saxiix xadiis saxiix ayuu ku warinayaa kolka meeshan waxaan ka fahmaynaa sida culimmadu ay uga hadleen ama loo adkeeyey masalada salaada yacni oo aan loo fudeydsan karin marnaba wasu'ila caliy radia allahu canhu cali baa la weydiiyey can imra'atin laa tusalli gabadh aan salaada tukanayn bal ka warran baa la yidhi faqaala wuxuu yidhi man lam yusalli ruux aan tukan fahuwa kaafirun waa gaal rawaahu lbukhaari baa wariyey fii taariikhihi wagayru kitaabkiisa taariikhda ayuu imaamu bukhaari ku wariyey kitaabu taariikh lilimaam albukhaari ayb kolka yani ruuxa aan salaada tukanayn cali bin abi taalib waad ujeedaa saxaabiga jaliilka meeshuu ka hadlay وعن ابن مسعود waxaa laga wariyay رضي الله عنه من لم يصلي فلا دين له ruuxa aan salaada tukan diin ma leh وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه كلنا من ترك الصلاة فقد كفر ninka salaada ka taga wuu waa gaaloobay وهو قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني marka culimo badan ayaa waxay u arkaan
ruuxa taariku salaadkiihii inuu gaal yahay waxaa ka mid ah ibraahim annakhaci waa raggii salafka ahaa iyo abu ayuub asakhtiyaani ibnu cabaas baa yidhi yaa hadalka laga sugo qaala cabdallah ibnu cabaas ninka salaada ka taga waa gaal cabdallah ibnu cabaas saxaabta raggii ugu asxaabtii nabiga ragga ugu cilmi badan buu ka mid ahaa marka wuxuu ninka salaada ka taga waa gaaloobay wa qaala cawn ibnu cabdallah ina alcabda addoonku wuxuu yidhi idaa udkila qabruhu qabriga marka la geliyo su-ila can salaati awalu maa yus'alu waxa u horeeya awalu shay waxa u horeeya yus'alu canhu waxa u horeeya la weydiin waa salaada fain jaazat hadday salaadu asaxdo lahu nudira fii maa duuna dalika min camalihi wixii kale ee acmaashii kalea la fiirinaya markaa camalkii salaada ka dambeeyey oo dhan baa markaa la fiirinaya hadday salaadiisu u asaxdo oy wanaagsanaato wain lam tajuz hadday salaadiisu fiicnaan weydo oo salaadiisu ay ka xumaato oo la aqbali waayo lam yundar fi shayin min camalihi bacdahu wax ka dambeeya oo camala lama fiirinayaba marka salaaddii baa waxay noqotay acmaashii kale oo dhan yaa ku xidhmay hadalka ninkaas salafiga marka la fiiriyo wa qaala ibnu xasmi wuxuu yidhi laa danba bacda shirki acdamu min taakhiiri salaati can waqtiha wa qatli mu'minin bikayri xaq wax dembi oo ka weyni ma jiro gaalnimo kadib salaad in dib loo dhigo oo waqtigeeda lagu tukan dembi ka weyn ma jiro iyo ruux mu'mina in la dilo waa si aan xaq ahayn xaq la-aan la iska dilo ruux muslina in la iska dilo oo xaqan lagu dilayn hadduu ruux dilay yacni waxa weeyaan hadduu ruux dilay de kolkaa waa loo dilayaa laakiin ruuxan waxba dilin oo bikayri xaq la iska dilay baa laga hadlayaa waa dembi weyn وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي رحمه الله تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف في رقبته وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت وقال ابن شريح يخنص بالسيف حتى يموت لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه وقال أبو حنيفة وداود والمزني وغيرهم يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل ثم اختلفوا في كفره إذا تركها من غير عذر حتى يخرج وقتها meeshan waa soo sheegay yani dib ugu noqon maayo xukunka taariku salaadka dee culimada qaar waa gaal bay dheheen oo qaarna waxay dhaheen seeftaa madaxa lagaga goynaya qaarna waxay dhaheen waa la xidhaya masalada waan ka soo hadlay wa qaala ibraahim annakhaci wuxuu yidhi waa ayuub asakhtiyaani wa cabdallah ibn mubaarak wa axmed ibnu xambal wa isxaaq ibnu rahawey kaafir weeyaan bay dheheen raggaasoo dhan waa gaal bay dheheen waxayna soo deliishadeen xadiidka hadda aan soo sheegnay alcahdu aladii baynana wa baynahum assalaa faman tarakaha faqad kafar annaga iyo munaafiqiinta iyo gaalada waxaana lagu kala gartaa salaadu ruuxu ka tago marka faman tarakaha ninka ka taga faqad kafara u gaaloobay iyo xadiidkii kale isna aan soo sheegnay bayna arajuli wa bayna alkufri tarku salaa ninka iyo gaalnimada waxaa u dhaxaysa salaada imaam axmed baa warinaya iyo muslimka meesha ay culimmadu la mareen xukunka marka waad u jeedaa dadka qaar baa waxay u maleynayaan in ra'yi ruux lagu gaaleynayo oo taariku salaadku waa gaal kolka la leeyahay ma ra'yi baa macnaha ma adiga ra'yigaaga ma aniga ra'yigayga deme waad u jeedaa nusuustu meeshay martay axaadiidta nabigu waad u jeedaa meeshay martay ahlunaar inuu yahay waad u jeedaa marka maxaa lagu doodi intaa ka badan oo loo odhanayaa ruuxaasi waa mutashadid waxbuu adkeynaya maxaa la adkeynaya sunnadii nabiga ayaa halkaa marisay diintii nabiga ayaa halkaa marisay taariku salaadka marka aduu ruuxna ha qabsanin haddaad taariku salaad tahay dadka haganin diinta ilaahay kusoo noqo waruwe waxaa la wariyey awalu man yusawidu wajhahu yowma alqiyaama wujuuhu taariku salaa weji la madoobeeyey wejiga u horeeya qiyaamada taariku salaadka weeye wa anna fi jahannama waadin jahannamana waxaa ku yaala waadin tog yuqaalu lahu lamlam togaa lamlam baa la yidhaha magaciisa fiihi xayaatun abeesooyin baa ku jira kullu xayatin abeeso kasta bitiqani raqabati albaciir
awr bay ka luqun yay la eg tahay awr luqunti bay la eg tahay culays waxay ka qabto duuluhaa dherarkeedu masiiratu shahrin waxa weeye dherarkeeda haddii la waxeeyo bil baa lagu socon lahaa baa layidhi intay dherarka jirto weyni waxay ka qabto abeesadaas tal socod waxay qariinaysaa taariku salaadka qarintaa fayaqlii waxaa ka kara sumuhaa sumkeeda fii jismihi jidhkiisu ka karayaa 70 sanatan 70 sano markay qaniinto abeesadaas markay taariku salaadka qaniinto ya jidhkiisa sumkeeda ka karaya 70 sano uma yataharaa laxmuhu kadibna waxaa googo-aya jidhkiisa intaa kadib haddana waxaa googo-aya jidhkiisa sumkaa darteed waa ciqaab min allahi subxaana wa tacaala hawshaasi waa howlo adag waxaan ugu yeedhayaa dadka muslimiinta ah dhammaantoodba naftayda waxaan ugu yeedhayaa marka hore iyo dadka muslimiinta ahba inay salaada la tukado in diinta ilaahay lagu toosnaado in dhaqanka islaamka la qabsado halkan waxaan rabaa inaan ka sheego qiso xikaayatun qiso dhacday ruwaya waxaa la wariyay ana imra'atan min bani israa'iil gabadh reer bani israa'iila jaa-ad waxay u timid ilaa muuse u timid calayhi salaam muuse u timid wa qaalad waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay ow innii adnabtu dembi baan galay cadiiman oo weyn waqad tubtu dembigaa waan ka tooba keenay ilallahi tacaala ilaahay baan u tooba keenay bay tiri fadcu llaha ilaahay ii bari an yakfira lii dembii ilaahay dembigii horeen sameeyey inuu iga dhaafo ilaahay ii bari muuse ku tiri oo wayatuuba calaya towbadana iga aqbalo wa qaala lahaa muusa wuxuu ku yidhi calayhi salaam wamaa dembuki oo maxaa dembigaas muxuu ahaa qaala waxay tidhi yaa nabiyallah nabiga ilaahayow innii zinaytu waan zinaystay kow zinan horta ku dhacay macnaha yani waxa weeye zinaan ku dhacay xaaraan baan ku dhacay weeyaan guur la-aan wa waladtu waladan ilmaan ku dhalay sidii zinadaasaan ilmo ku dhalay fa qataltuhu ilmihii baan dilay dadka zinada markay ku dhacaan ay ceeboobaan qaar badan baa dila ilmaha waxaana u dilayaa dee inaan ceebtaa lagu ogaanin waa dembi kale ilmihii baan dilay bay tiri fa qaala lahaa muusa wuxuu ku yidhi ukhrijii yaa faajiratu naga bax buu ku yidhi faajirad yahay ilaahay caasiday laa tanzil yeyna nagu soo degin naari min asamaa'i samada fa tuxriqana ayna gubto bishu'miki adiga adi dartaa joogista aad nala joogto darteed yuuna samada nagaga soo degin buu yidhi naari oyna gubto markaa sabab ha noo noqonin aad anagoo na gubtee naga bax buu ku yidhi fa kharajat min cindihi way ka tagtay agtiisa ka tagtay munkasirat alqalbi iyadoo qalbigeedu jaban yahay qalbigii baa jabay macnaha waxaa looga jeedaa way niyad jabtay fa nazala jibriil calayhi salaam jibriil baa soo degay wa qaala wuxuu yidhi yaa muusa muusow alrabu tacaala yaquul ilaahay baa yidhi lima radadta taa'ibata war gabadhan tooba keentay maxaad u diiday maxaad u celisay yaa muusow amaa wajadta sharan minha oo gabadha wax ka shar badan maadan arag miya weligaaba qaala muusa wuxuu yihi yaa jibriil waman huwa sharun minhaa oo yaa ka shar badnaan kara taa qaala jibriil baa wuxuu yidhi taariku salaati caamidan mutacamidan ninka salaada ka taga isagoo u kasaya oy salaadii joogto u kasayaa ka shar badan baa layidhi kaa gabadhaa zinaysatay ee ilmihii dishay taariku salaadka ka shar badan baa layidhi waad u jeedaa meesha qisadaa la mariyey marka insha allahu tacaala darsigan halkaasaan ku joojinayaa wixii aan waafaqay fa min allahi subxaana wa tacaala wixii aan gafayna fa minii wa min ashaytaan wallahu aclam wsala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim